xilliyo kala duwan waxaa baraha bulshada caado ka noqotay in marka qof uu guulaysto gaar ahaan qurbaha in la arko dad Soomaaliyeed oo sheegaya inay isku meel ka wada yimaadeen oo ka soo wada jeedaan qofka kadib guushii shalay ee Nadia Maxamed oo loo doortay duqa magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa arintaasi mar kale soo shacbaxday waxaa baraha bulshada ee dadku ku xiriir si aad ah looga hadal hayay qoyska ay tahay gabadha iyada oo qof walba uu sheegayo in ay isku meel ka soo wada jeedaan danka baraha bulshada dooda badan ayaa ka dhalatay halka ay gabadhan ka soo jeedo dad badan oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa sheegay inay isku qoys yihiin danka kale waxaa jira dad qaar oo baraha bulshada isticmaala oo arintan ku tilmaamay inay tahay wax aan wanaagsanayn in Soomaalida ay qoys ahaan ugu faanaan qof isaga dadaalkiisa ku gaaray heer sare haddaba waxaa jira su'aalo la isweydiinayo oo ah maxay tahay sababta ay dadka Soomaalida ah u sheegtaan qofka marka uu heer gaaro ama madax noqdo maxay tahay faa'iidada ugu jirta in qof uu heer ahaan ku taageero isagoo waliba og in qofkaas aysan isku meel joogin oo xitaa aanay jirin wax uu ku caawin karo waxaa xusid mudan in halka laga soo doortay Nadia ay ku badan yihiin dadka aan Soomaalida ahayn taasi waxa ay macnaheedu tahay in inta badan dadka u codeeyay ay u badan yihiin dad aan Soomaali ahayn qaar ka mid ah dadka u oroleeya midnimada Soomaali weyn ayaa marar badan ku dhaliilay dadka Soomaalida ah ee dadka guulaysta ku faana inay meel ka soo wada jeedaan iyaga oo taas ku tilmaamay inay kala qaybinayso bulshada sidoo kale xafladaha dadkaas lagu taageero ee ay dhigaan dad isxilqaamay ayaa qaarkood la keenaa calamo kala gooni ah oo astaanta u ah qoysaskooda taasna walaac ayay ka muujiyeen calamada kala duwan oo horay u jiray balse aan sidaas u sii badnayn ayaa aad loogu baraarugay dhowrkii sano ee la soo dhaafay arrintan oo markii hore ka jirtay meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa u muuqata inay ku sii fidayso bulshooyinka Soomaalida ah ee ku nool dalalka qurbaha